السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني سدح الطبنات برشاد علمية كمبيوتركا especially Microsoft Word 2007 and هدو إله إدمو عشر كنا وحنكو قادن دونا ما بانكو بران دونا how to insert shapes iyo sidoo kale how to make grouping shapes iyo sidoo kale how to make ungrouping shapes. Okay, grouping and ungrouping. Okay, intaasan ku qaadan doona haduu ila yiraahdo. Marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa ama baan ka bilaabaynaa shapes ee loo soo geliyaa. Waxaa tagta marka ugu horeysa wordka marka ugu horeysa soo fur then halkaas waxaa tagta halkaas ay ku qoran tahay insert meesha ay ku qoran tahay aan ku soo dhaweeyo xogaa waxaa tagta halkaas oo ay ku qoran tahay insert markaad tiraahdo waxaa tagta halkaas oo ay ku qoran tahay shapes click ayaad siinaysaa halka click markaad siiso marka wuxuu ku soo bandhigayaa dhowr xabo kamid ah recently used shapes, lines, basic shapes, block arrows, flowchart, callouts, stars and banners iyo new drawing canvas. Marka waxaan ka dooranaynaa oo kale flowchartka oo kale halkaas tusaale kanaan ka doorto kan oo kale okay kan marka hadda aan soo geliyay waa hal shape shapeka labaad sidoo kale insert aan iraahdo halka kadib waxaan ka tagayaa halka shapes then aan doorto oo kale xidig oo kale aan doorto waa another shape sidoo kale asagana halkaasaan dhigayaa hadda marka halkan waxaa yaalo laba shape okay marka mid kale aan ku soo darayaa waxaan leeyahay insert shapes then waxaan ka dooranayaa oo kale lineska oo kale flairta oo kale aan ka doorto kadib halkaas ayaan dhigayaa marka aan ku aadinayaa okay hadda marka halkan waxaan ku haystaa saddex shape okay marka waxaan sameynaynaa colorkan ka bedelaynaa oo kale kanaan rabaa inaan color u sameeyo waan dooranayaa marka ugu horeysa then waxaan tagayaa format kadibna waxaan tagayaa shape fill halkan ka door marka tusaale blue oo kale ama red oo kale aan ka doorto automatically xidiga waa iska sidiis okay haddii aad rabto oo kale halka waxay ka dhigi kartaa colorka waad ka bedeli kartaa waxaad ka dhigi kartaa kaas oo kale marka midkaad doontid okay marka sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa oo kale yellow waxaad ka dhigi kartaa oo kale orange black sidoo kale adu wixii kalaraha halkan ku jiro midkaad doontid ayaad ka dooran kartaa okay marka hadda kuwan am shapeskan waa kala tagsan yihiin grouping uma samaysna grouping ma lahan hadda fiiri oo kale aan sameeyo oo kale hadda fiiri hadda waa kala qaadmayaan yani marka groupingka marka la sameeyo waxa dhan waxaa la rabaa hal mar inay isla wada qaatmaan yani hal mar in la wada qaadi karo ayaa la rabaa haddii grouping la sameeyo laakiin hadda haddii aan grouping aan la sameynin xogaa waxa waaye waa kala tagsan yihiin yani islama socdaan marka grouping aan sameynayna si aan grouping aan u sameyno waxaan sameynayna marka hore waxaan dooranaynaa oo kale kan ugu horeeya oo kale click aan siinayaa then waxaan qabanayaa control aan qabanayaa control ayaan ku dheganayaa hadda marka calaamadaas plus ayaa ii soo muuqatay then marka hadda xidiga oo kale ayaan click siinayaa weli waxaan ku dheganahay control click aan siiye hadda marka waxaa ii select garaysan ama ii dooran laba xabo kan kore iyo waxaa ii dooran shapeka kore iyo xidiga marka waxaa ii dhiman lineka ii dhiman lineka sidoo kale
waan agtiisaan keenaya markaan usoo dhaweeyo xogaa waxaa ii soo baxday calaamada balaas weli keligaan siinaya hadda marka saddexdoodu way ii dooran yihiin hadda marka waxaan samaynayaa controlkan iska daynaya control waan sii daynaya kadib waxaan leeyahay right click then waxaan aadaya grouping kadib group ayaan click siinaya waa kaa hadda marka aan jiida marka drag and drop aan ku sameeyo waa kaa mujeda hadda marka waxaan samaynay grouping ayaan samaynay kulligood hal group ayaan ka wada dhignay mujedin haye intaas waa fahnay hadda waxaan baranaynaa marka sida ungrouping looga dhigo ungrouping sida yani loo kala qaado okay en marka hore waad dooranaysaa kadibna waxaad leedahay right click then waxaad tagaysaa grouping kadibna waxaad ku dhufanaysaa oo keliya ungroup kaliya markaad siiso hadda marka waa kala tagtagsan yihiin fiiri kanaan soo qaadaad fiiri mujeda hadda fiiri waa kaa hadda marka waxaan samaynay hadda ungrouping ayaan samaynay maxaan samaynay ungrouping okay marka waxay la tahay in la fahmay ama si fiican loo fahmay casharkeena 13aad ama casharkeeni 13aad halkan ayaan ku soo gabagabeynaya waa inoo casharka xiga iyo sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh